wasiirka arrimaha gudaha Somaliland Maxamed Kaahin oo waayay cid la hadasha tan iyo markii uu bilowday kacdoonka shacabka ee Laascaanood ayaa la soo warinayaa inuu qaatay go'aankiisii ugu dambeeyay ee lagu burburinayo abaabul beeleedka weyn ee muddada ka socday gobolka Sool xilli uu garaadka guud ee beesha dhulbahantay garaad jaamac garaad cali gaaray magaalada Laascaanood ee gobolka Sool isagoo ay ilaalinayaan ciidamo u gaar ah oo tiro badan ninkan ayaa markii koowaad tagaya Laascaanood isagoo wata ciidamo hubeysan oo diidan Somaliland waxaana halkan ugu dambeysay markii ay Somaliland qabsatay Laascaanood 17 sano ka hor muuqaalkan ayaa aad ku daawan doontaan xogihii ugu dambeeyay ee Laascaanood iyo shaxda uu xilligan ciyaarayo wasiir Maxamed Kaahin oo ah tiisi ugu dambeysay xilli ay simada dhulbahantay heleen taageero shacab oo xoogan like muuqaalkan una share garee asxaabtaada followna soo dhig page-keena YouTube-keenana subscribe saaro si aad noola socoto tan iyo markii ay magaalada taariikhda fog leh ee Laascaanood gashay kacdoonka shacabka ee lagu diidan yahay Somaliland waxaa halkaas ku sugnaa wafdi uu hogaaminayo wasiirka arrimaha gudaha Somaliland Maxamed Kaahin kaasi oo kulamo isdaba joog ah la lahaa qaybaha ciidanka maamulka Laascaanood iyo cid walba oo saameyn ku leh gobolka Sool waxaana kulamadaas uu ku dalbanayay wada hadalka iyo in xiisadda la dejiyo oo aan la gaarsiin meel aan waxba laga qaban karin waxaana guul daraystay dhammaan kulamadaas iyo wada hadaladii uu dalbanayay Maxamed Kaahin kaasi oo aan cidna dhageysan intaas kadibna maamulka Somaliland ee ku sugan Laascaanood ayaa bilaabay kulamo isdaba joog ah oo lagu hor istaagayo arrintaas waxaana la soo warinayaa inuu Maxamed Kaahin ka shaqeynayo abaabul ciidan iyo mid farsamo saraakiisha ciidamada Somaliland ayaa la sheegay inay ku taliyeen in la xiro magaalada oo ciidan lagu daadiyo waana halka ay markaan xooga saarayaan mas'uuliyiinta Somaliland ee amarkoodu ka shaqeyn la yahay Laascaanood dhinaca kalena waxaa magaalada Laascaanood gudaha u galay garaad jaamac garaad cali iyo ciidamo galbinaya oo halkaas u tagay qadiyada la xiriirta sidii ay Somaliland uga bixi lahayd Laascaanood waxaana loo sameeyay soo dhaweyn heerkeedu sareeyo sidoo kale waxaa isna shalay tagay magaalada Laascaanood garaad Cabdirasaaq Soofe kaasi oo halkaas ka jeediyay hadal adag oo ahaa 500 oo tigniinka ah iyo hub culus ayaanu haysanaa waana dagaalamaynaa hadalkaas oo u muuqda inuu xilligan durba Laascaanood ka taagan yahay marka la eego sida ay isimada gobolka Sool ugu sii qulqulayaan magaalada Laascaanood iyo hadallada adag ee halkaas ka imaanaya dhinaca kalena la eego kulamada iyo abaabulka ay wadaan mas'uuliyiinta Somaliland ee ku sugan Laascaanood waxaa durba kugu soo dhacaysa ama aad dareemaysaa inay xaaladdu tahay mid adag oo xilligan labada dhinac uusan wax wada hadal ah dhex mari karin dhinac walba ayaa xilligan isku dayaya inuu fikirkiisa dhaqan geliyo waxaana adag in la hor istaago isimada intaas tiro leeg iyo shacabkoodii oo taageersan taasi oo muujinaysa inay waxgaradka gobolada Sool ay waqtigan intooda badan hal mowqif taagan yihiin kaasi oo ah inay Somaliland ka baxdo Laascaanood isimada ugu miisaanka culus beelaha dhulbahantay oo tagay Laascaanood markii ugu horeysay kana hadlaya qadiyad la xiriirta sidii Somaliland looga saari lahaa Laascaanood ayaa xaalka ku sii adkaysay Somaliland taasi oo aan dhowr bilood ka hor la aaminsanayn inay Laascaanood gali karto kacdoon noocan ah iyadoo ay gobolkaasi tagi karaan isimada ugu waaweyn beelaha dhulbahantay oo wata ciidamo aan ka amar qaadan Somaliland xiisadda Laascaanood ayaa hadda u muuqata inay adkaatay waxaana maalmaha nagu soo aadan isha lagu hayn doonaa sida ay Somaliland u maareyso kacdoonka shacab iyo midka wadayaasha dhaqanku ka wadaan Laascaanood taasi oo laga eegayo laba dhinac oo kala duwan mar waxaa si buuxda isha loogu hayn doonaa odayaasha dhaqanka iyo isimada halkaasi isku balansaday dhinaca kalena waa Somaliland oo isku dayaysa inay dhaqaale ahaan iyo siyaasad ahaan kala furfurto kulankaasna ay baajiso kana dhigto mid guul daraystay Somaliland oo awood ciidan ku haysata gobolka Sool waqtigan waxa kaliya oo ay sameyn karto waa inay dagaalanto oo ay gobolka sii haysato taasi oo aan waqtigan labada dhinac midna u fududayn iyadoo la aaminsan yahay inaysan dagaal fursan doonin marka la eego qaabka ay wax ku socdaan waqtigan intaas ayaan ku soo koobaynaa warbixintan oo aan ku eegaynay xaaladihii ugu dambeeyay ee magaalada Laascaanood iyo guud ahaan gobolka Sool waxaana maalmaha soo socda qayb idin la wadaagi doonaa sheekooyin ku saabsan xiisadaha ka taagan gobolka Sool gaar ahaan magaalada Laascaanood